anigoo ah Qaali Maxamuud Guhaad ikraan hooyadeeda gabadheeda waxay ku dhalatay gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne waxay dhalatay 1996 waxaan ka guurnay iyadoo yar oo bila jirto waxaan degnay dalka Kenya primary ilaa secondary ilaa heer jaamacad ku dhigatay waxay dalka dib ugu soo noqotay 2017 waxaa shaqaaleysay taliye Sambaloolshe intaas kadib waxay ka shaqo bilowday gobolka Banaadir 2019 waxay aaday 2019 dalka Ingiriiska UK waxay u aaday waxbarasho waxay ka soo laabatay 2020 bishii 6 markay soo laabatay bishii 6 waxa ka dhacay adduunyada waxa ka dhacay cudurkan coronavirus saas aligeeda jaamacadii loo xiray markii jaamacadii la xiray iyadoo London joogto oo macnaha jaamacadiina coronahaas aligiis loo xiray waxa soo wacay Fahad Yaasiin siday ii sheegtay gabadhu Fahad Yaasiin soo wacay waa ila soo hadasho waa soo baxay tir hooyo xamara soo aadaya xamaran soo aadaya markay dhahday waxay maxaa u soo bixaysaa waxay tir jaamacadii waa la xiray maxaan ku dhahay waxaan ay u wacay taliyaha nabad sugid Fahad Yaasiin marka xamara aada saasay ku soo baxday xamaray timiday xamar markay timiday waxay joogtay June ay timiday July iyo August iyo September iyo October iyo November iyo December 28 Ankara inta ka baxday Ankara noogu timiday waxay nala joogtay January iyo February iyo March aakhirkeedii 26 ay naga soo tagtay oo loo yeeray oo ay timid Muqdisho ku soo laabatay oo dhahday waa la yeeray marka intay jaamacadeedina online-keeda iska baranaysay waxa jirtay inaa maalin soo wacay markaan soo wacay waa iga qabatay maxaa kugu dhacay codkeeda laciif ahaay waxay tiri hooyo madaxa i xanuunaayo maxaa kugu dhacay maanta nina iga soo xanaajiyo kulanajiis la yiraahdo oo hay'adaas ka shaqeeyo oo maanta i handaday oo aan ka xanaaqay oo waxyaabo aan jeclaysanin i weydiiyay maxay wuxuu ku weydiiyay ima sheegin ana imaanayo marka imaada hooyo ku sheegay ay dhahday waxa dhacday habeen inaan soo wacay oo habeenkan oo gabadha la afduubi doono video call aan kula hadlay intee u socotaa waxay tiri taliyaha i wacayon u socdaa markay tiri yaa ku wadaay saacadan waxay tiri iyaga ii soo diray gaariyaashooda mid ka mid ah ali soo diraya nin Axmed la dhahay ugu dhahday ama wadna qabad labadaas mid ay soo diraa gabadha waxay deganeeday oo ummadana u jeedaa Soomaaliyeed wixii aqli qabo dhan u jeedaan oo wax fahmaayo Hotel City Plaza ka soo horjeedkiisa guri ah yey deganeed xaruntan waxay isku jiraan dhowr tilaabood oo ilmo saqiir ah tagi karo meeshaasna meel oo waxa waaye ammaankeeda sugan yahay qof soo gali kara jirno laba iridood ka go'an meeshaas meel gaari soo gali kara ma gaarigi soo galay waa gaari gacan lagu soo daay oo sharciyeysan oo gaari sharciyeysan oo hay'adda nabad sugidda leedahay moogiye gaari kale oo meeshaas imaan karo oo soo gali karo ma aha gabadhuna ma aha gabar doqon ah waa gabar aqli qabto qof wax bartay qof ka qaaday waa qof oo meeshii nabad sugidda gaari looga soo diray iyo qof ay taqaano bay raacday moogiye iska ma raacin gaari allow Fahad Yaasiin qof aan isnaqaano ahay qof aan isbaranayna ma ahayn waa ii wacay waan u tagay wuxuu yiri laba bari ka bacdi naga warsug labadii bari waxay qaadatay 2 bilood iyo something 3 bilood oo wax dhiman marka waxa iigu soo xigtayba labadii xaraf oo lagu soo qoray Facebook oo la yiri gabadhi shabaab qaaday oo dilay waa wax iska cad waa wax aqliga saliimka diidaayo waa wax maskaxdeena ka dagaynin marka gabadhaydii haday dilaan booshay ku rideen ha sheegaano hoob soo baxsanayna waa duuganayna haday nooshayna noo soo daayaan hadii bilood iyo samtigii gabadhaas iga maqneed madaxweynaha iga la hadlin ra'iisul wasaaraha iga la hadlin waxa ka hooseeya iga la hadlin waa arin murugadeeda leh qof hooyo ah oo xanuun haayo oo cunugeedii ka maqan yahay oo loo beer la xawsanin oo la danaynin meeshaas waa kugu daliyaan u gartaa shabaab shaqo inuu ku lahayn asagaaba sheegay
oo facebookyadooda iyo website-yadooda ku soo sheegay inuuna shaqo ku lahayn. marka arrinta waaba iska cadda. aniga waxaan rabaa cadaalad nimanka u sareeyo xeer ilaalinta cadaalad falaano waa inay Ikraan Tahliil arrinteeda sida xaq oo cadaaladda ay uga hadlaan oo cadaalad fuliyaan oo Ilaahay iyo maalinta qiyaamo ay uga baqaan Ikraan arrinteeda oo sida saxda oo cadaaladdu tahay ay uga hadlaan ay qof ay ka baqaan iyo qof ay u aabayeelo ay jirin. marka haday dawladii ka hadli waysay cabashadeena iyo dhibaatadeena iyo wax nagu dhacay ilmihii yaraayo wax bartay oo wadankooda dib ugu soo noqday saan la yeelayo waxa u maleynaa inay caqabad ku noqon doonto dhalinyarada wadanka wax u soo baratay in ay dawladdanba iyo waxa shaqaysanaysiin ama wadanka wax u qaban kartiin caqabad ay noqonaysaa because way cabsanayaan ilmihii saana la yeelaya ilmihii waa la dilaa. marka cunug walba Ikraan uu ku qoos qaadanaya oo wadani ahay oo wadanka wax u soo bartay hore jaqda u sii galaa meeluhu jira meel ka soo dheerow aadaya sababtoo dawladii kama hadlayso way u jeedaan waxa Ikraan ku dhacay way u jeedaan dhibaatada ku dhacday way u jeedaan waalidiintii aan ooynayno hadlayno hal madaxweyne hal ra'iisul wasaare oo prime ministerkii iyo madaxweynihiiba ay aamusan yihiin. marka qof ku soo dhiiranaya ma laha ilmihii wax bartay inay wadanka ku soo laabtaan. aniga markaan hadlo oo dhibaatadayda ka hadlo oo isoo daba furfura oo soo istaaga jeesow halayga qabto islaamnimo haday jirto jeesow halayga qabto jeesow aniga jeesow dadkiisa ha iga qabsadaano waa iga eheb ammaan ha isii gabadhayda ma matalo wuxuu ka hadli karana ma jirto wuxuu u yahay ma laha ha iga leexdo waa ka aniga markaan hadlaba i daba furfura i daba taagane fadliga Ilaahay nagu nabad geliyo Ikraan meesha u geeyay jirtaa wabillahi tawfiiq.